sanadihii dambe adduunka wuxuu ku tilaabsanayay horumar oo waxyaabo aanan jirin 10 sano ka hor adduunka hadda laga helaa dhibaatooyin fara badan way keeneen horumarkan xawliga ku socdo ee adduunyada ee wajahayso waxaa jiro shaqooyin badan oo ay qaban jireen bini aadanka ilaa laga bilaabo aadan iyo xaawo xilliga adduunka la asaasay ilaa hadda ay la wareegeen mashiino ama system ama computer ay qabtaan marka waxaan kula wadaagaa 5 shaqo oo near future mustaqbalkan dhow sanadahan soo socdo ay kulli automatic wada noqon doonaan ay qaban doonaan mashiino bini aadanka laga maarmi doono shaqada ugu horeysa waa cashier ama gabadha ama wiilka markii dukaamada waaweyn aad tagtid wax ka aad ka iibsatid hadda dukaamada inta ugu badan waxa laga dhigay automatic oo adaa iskan gareynay adaa mataqaana waxaadi samaysanay adaa bacdaada ku ridanay lacagta adiga dhiibay waxa laga yaabaa hal qof inuu taagan yahay meesha ay ka taagnaa jireen 30 qof example dukaanka Primark waxa laga yaabaa 3 dabaq inuu ka kooban yahay dabaq kastana lacagta ku dhiibi jirtay markay ugu yar tahay 15 ay ahaayeen leenkiba waxa laga yaabaa 45 qof inay ka shaqeyn jirtay hadda waxa laga yaabaa 10 qof inay ka shaqeyso dadkii inta ku badanaay waa shaqada waa laga diray mashiina qabto adiga iskan gareynaysa adaa wax ka samaysanaysa shaqada labaad waa truck driver ama baabuurtan waaweyn darawalada wado tijaabo adduunka lagu jiraa in laga maarmo darawalka dhibaato lagu qabay ilmaha iga xanuunsaday overtime marabi madaxa ay xanuunay hadda waxa la wareegay mashiin system wadaayo London ka baxa ilaa Roma kadib oo soo noqona wax soo wacay wax ma jiro oo shaqaysana marka drivers ama darawalo dhan way u dhamaanay waxaana hadda aad u badan tahay taxiga iyo baabuurtan waaweyn labada in laga maarmo ka saddexaad waa travel agency xilliyada hore dadka inta ugu badan waxay tagi jireen travel agency waa loo buuxin jiray waxa loo raacan jiray hotel raqiis ticket raqiis hadda internetka wax dhan ku qabanay waxa jira wili aabab oo casri ah hadda dhahdad magaalo hebel aan u socdaa waxaan rabaa hotel waxa dhan ku diyaarinay oo hadhow ku sheegay intaas oo hotel qiimahooda ku soo qoraay iyo intaas diyaaradood aan raaci kartay iyo tigidadooda marka qofka iska leh travel agency shaqadiis waa dhamaanay shaqada afraad waa turjubaannimo dad fara badan waxa jira ku shaqeysto turjubaan وشيء ما له شغلات وحجري برامج software أو European Union استعمالا وحكى شغين جري سدد بقول أو ترجمان لغات كستو أو تضبي لبعضن أم سدد لبعضن كان وطن يوروب لغاتها يكون هذان الترجمة جرين هذا هل software بدري software كاس مركا أيضا ما دام قد بوينك والجرينا وحواي وحكدي على لغات والب قفل بهدوتين وحلو قدرة إيميل كيسة هوشي فرح بدنت qaban jireen dadkaas saasi ku dhamaatay marka hadii aad turjubaan tahay waxa laga yaabaa 100% in turjubaan laga maarmi doono isbitaalka qofka markuu tago in la dhaho hadal takhtarkana uu ka fiirsado shaashad qofkan wuxuu dhahay hadda af Soomaaliga waa la turjumaa luqadaha ugu badan adduunyada oo la isticmaalo Faransiiska Carabiga Jarmalka kulli hadda waa la turjumaa Chinese-ka تنشنات warehouse worker dadka ka shaqeeyo maqaasiinada ama warehouse-yada inta ugu badan shaqooyinka hadda waxa qabto robotyo ama mashiino ka fiican dadkii xanuunsanaynin maalin walba taagan 24 hours shaqeynay kambaniyada ugu badan hadda waxa laga yaabaa half inay dad qabtaan shaqada halfka kalena ay mashiino qabtaan mashiinadaas way ka dheerayaan bini'aadanka way ka orod badiyeen way ka shaqo badiyeen way ka raqiisayeen oo kambaniga hal mar soo gadanaa laakiin shaqaalaha sanad walba waxa loogu daraa baan laba baan waxa laga yaabaa marka qaar kood shaqada inay badato oo loo baahdo meeshii 2 qofood ka shaqeynaysa 5 qofood meeshii 10 ka shaqeynaysa 20 qofood laakiin mashiinka kambaniga hal mar gadanaa maalintu halaaba bis loo baahan yahay engineer inta shaqeynay break ma laha ma taqaana holiday ma laha bay rise ama lacagta iyo kordhi ma laha waxa soo dhameeshay ka baxeen marka shantaas shaqo hadaa tahay qof qabta waa lagu soo socdaa marka kulay muddo qaadane in wax badan la bedelo laakiin saadaasha waxa la saadaalinayo
in sanadaha soo socdo shaqooyinkaas dadka qabanaya ay yaraadaan shaqooyin kale badanaa jiro sida bangiga camal hadda bangiga dadka badanaa ma tagaan oo aabay ku samaystaan lawyerka awoodu ka bixi doonaa lawyer oo mar dhow dacwadaadii adigaa qoranaya adoo isticmaalaya artificial intelligence waxaa laga maarmi doonaa takhaatiirta badanaa dadka kalkaaliyaashu receptionist waa u dhammaatay wax badanaa u dhammaaday laakiin shantaana hadda soo qaadanay shan kale insha allah waan samayn doonaa please follow garay youtube-ka Ramole Info hadda kadib video badanaan soo dhigi doonaa youtube tiktok caadi u isticmaalo iyo facebook marka youtube-kaygu waa Ramole Info